السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan idin baro shirkaddan la yiraahdo dhk.com. dhk.com waa shirkad iyadana weyn oo runtii tartan kula jirta shirkadda Alibaba. wax yar marka hore Wikipedia-heedan tusayaa. shirkaddu waa private. dhk.com la yiraahdaa. e-commerce-ga ayay caan ku tahay. P2P ayay serve gareysaa oo macnaheedu ah business to business. dunida meel walbana wax laga iibsan karaa. shirkaddan waxay ku taalaa Beijing, caasimadda maaragtay dalka China ay ku taalaa. marka let's go to dhk.com. haddaba shirkaddan qaab ahaan waxay u samaysan tahay sida Alibaba oo kale sida kaaga muuqato, laakiin way ka duwan tahay. warshado badan baa ku jiro. waa marketplace caasimadda Beijing ku taalo. caalamka meelo badan baa laga iibsadaa. dad badan oo Mareykanka jooga waxay aaminsan yihiin in quality product laga helo sida Alibaba oo kale, laakiin mararka qaar ay Alibaba ka fiican tahay, qiimahana ay xoogaa yar ka qaalisan tahay. wadamada ay serve gareyso hadda aniga waxaa igu jira United States, laakiin caalamka oo dhan anywhere ku qoran, anywhere in the world. dropshipping ay mataqaanaa laga helaa haddii aad dropshipping ka taqaano. haddaba dhk kategoriyada ay leedahayna waa kuwana. hadda haddii aan cellphone accessories oo kala taabto, mid walba waxaa ii soo baxaya kategoriyadaas. cajiib. okay, marka waxaa weeye ujeedada ugu weyn ee dhk aan rabnay inaan cashar ooga sameyno waxaa weeye inta badan waxaa u baahan tahay alternative. Alibaba, dhk, China version, madeinchina.com, kulli website-yada waaweyn oo dhinaca casharaan ka sameynayna. taas marka waxay fududeynaysaa inaad adiga options inaad haysato, oo haddii aad Mareykanka joogto, haddii aad Canada joogto, haddii aad caalamka kale Africa joogto, meel walba aad doonto jooga caalamka, inaad haysato options aad alaab kusoo iibsan karto. kadibna alaabtaas ay toos dukaankaaga ama gurigaada kugu imaanayso, kadibna aad sii iibinayso. ogow xilliga hadda lagu jiro waa online weeyaan. uma baahnid inaad mataqaanaa diyaarad intaa qaadato China inaad tagto alaab ka soo iibsato. uma baahnid inaad Mareykan gudaheeda warshadaha Mareykanka xataa waa gali doonaa haddii la yiraahdo sida Mareykan gudihiisa wax looga iibsado. iyagana uma baahnid mataqaanaa inaad aad Mareykanka aad gobol u safarto. wax walba waxaa ku dhameysan kartaa online-ka. marka dhk waa shirkad aad u weyn weeyaan. kategoriyo badan example usoo qaadanayna insha Allah. waxaan example usoo qaadanaynaa shipping company-yada isticmaalaan iyo sida aad mataqaanaa alaab markaa ka iibsato aad usoo ship gareysan karto. waxaan kaloo tusaale usoo qaadanaynaa quality-ga alaabta iyo sida alaabta looga raadiyo, qiimaha alaabta, sida warshadaha loola gorgortamo. marka maskaxda ku hay shirkadda dhk.com waa shirkad tartan kula jirta shirkadda Alibaba. haddii aad hore u maqal, sidaas way shaqada ugu weyn ay sameyso. koorsadeeda oo dhameystiran oo international import iyo export ah aan ugu yeerayno koorsadan haddii la yiraahdo waxaa ka dhex heli doontaa warshadaha.com. haddii la yiraahdo kusoo biir warshadaha.com, membership-ka iibso oo monthly-ga ah ama bilbisha ah ama 3 bilood ama sanadka ah. kadibna ka faa'iideyso casharada gudaha ku jira sida international business ama international import iyo export sida loo sameeyo. shirkaddan doontaa bilaabi kartaa shirkad kabaha iibisa, shirkad dharka iibisa, shirkad cosmetic iibisa, shirkad maaragtay alaabta maacuunta iibisa. waxaad doontaa bilaabi kartaa as long aad taqaano meesha alaabta laga soo iibsado, warshadaha sida loola macaamilo aad garanayso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.